qofkii nabi maxamed caabudu jirayo nabi maxamed uu dhintay sallallahu alayhi wasallam qofkii ilaahay caabudu jirayo ilaahay uu nool yahay waligiisna uu noolaanaya ereyadaas caanka waxaa yiri Abu Bakr as-Siddiq asxaabigii weynaa radiyallahu anhu nabi maxamed markuu dhintay sallallahu alayhi wasallam Umar bin Khattab ayaa yiri nabi maxamed qofkii dhaw dhintay seefta ayaan qorta uga jaraya asxaab badan diinta ay uga baxday nabi maxamed markuu dhintay oo xilligii jaahilnimadooda iyo sanadkooda ay ku laabteen balse Abu Bakr as-Siddiq ayaa ereyadaas caanka yiri hadaba aniga waxaan leeyahay qofkii Maxamed Abdullahi Maxamed Farmaajo taageersanaayo jeclaayo Maxamed Abdullahi Farmaajo wuu tagay qofkii jeclaa qaranka Soomaaliya dawladnimada Soomaaliya weligeed way jiraysaa shalay way jirtay maanta way jiri doontaa berina way jiraysaa insha Allah ayarta sharafta meel walba joogta waan salaamaya waa Maxamed Faarax video waxa uu duubayaa fariin u dirayaa taageerayaasha Farmaajo taageerayaasha nabad iyo nolol doorashadii madaxweyne markay dhacday bishii 15 ee xadii la soo dhaafay asbuuc almost ay hadda ka soo ragtay maanta Jimcaha waxaanu arkaynay warbaahinta iyo social media meel walba aanu ka arkaynay in taageerayaasha Farmaajo ay oonayaan in kaarayaan habaarayaan madaxweynaha cusub oo ka raayay madaxweyne Farmaajo waa Xasan Sheekh Maxamuud inay kaarayaan ee habaarayaan midaas run ahaantii qalbigayga way xumaysay waan ka xumaaday in ma taqaana sidaan loo dhaqmo waxaan fariin u dirayaa hadaba taageerayaasha Farmaajo waxaan leeyahay laba arin oo kaliya ayaa nala gudboon maxaa asabta subin karno ko arinta la gudboon waa inaan noqono mucaarad saxad dawladda haga dawladda qaladaadkeeda sheego mucaarad nabad iyo nolol kuwaas oo sugi doono madaxweyne Maxamed Abdullahi Farmaajo 4 sano dambe 2026 markuu soo sharaxo taageeri doono madaxweyne Farmaajo wuxuu jiraa hadda 60 sano 4 sano ka bacdi wuxuu jiri doonaa 64 hadduu ilaahay caafimaad u daayo cimrina u daayo waxaa la rajaynayaa inuu mar kale soo sharaxi doono one man one vote markay noqoto ama doorashada badan haday noqoto 2026 sidaas waxaa laga rabaa hada taageeraha Farmaajo inaad madaxweynaha habaarin Xasan Sheekh Maxamuud balse aan noqoto xisbi mucaarada oo ku dhaliila dawladda waxyaalaha xun suubiso iyo waxyaalaha fiicanna ku amaano ha noqonina taageerayaasha sida Trump oo kale oo inkaara oo dawlad siyaasiyiinta kale oo kaltiga ah ama taageerayaasha xun ee Trump ha noqonina noqda taageero edable mucaarad ah edable ayagoo taageeraya Farmaajo si hufanna uga soo horjeedayo siyaasadda Xasan Sheekh Maxamuud waa laga fiican yahay madaxweynaha qarankeena inaan habaarno waa laga fiican yahay inaan dhahno Soomaalinimada waxa uga baxnay Xasan Sheekh Maxamuud oo kale waa laga fiican inaan dhahno in militariga xuquuq ku qabsadaan sidoo badan ay ku hadaqayeen gabdho badanna ay dhahayeen naaska iska jaraya rag ay dhahayeen dumarkeena ay furayna waxaas waa laga fiican yahay walaalayaal aan noqono mucaarad edeb leh aan noqono mucaarad fiican oo dawladeena hago Soomaaliya yaana noqonin mucaarad dadka iska inkaara iska habaara xildhibaanintii 214 Xasan Sheekh Maxamuud u codeeyay ilaahu ka soo kuudridnaha waa laga fiican yahay midaas noqda mucaarad fiican edeb leh oo siyaasadda kaliya ku dhigala ataageerin shakhsiyadda qofkaas qodobka labaad oo nala gudbo waxa weeye dawladdeena aan taageerno Xasan Sheekh Maxamuud aan u duceyno aanu garab istaagno garab ayuu nooga baahan yahay maanta ha taageeraha ugu badan ma haysto 90% taageerayaasha Soomaaliyeed waxa haysto Farmaajo Xasan taageero ma haysto maalintu madaxweynaha noqday kaliya Muqdisho bas looga banaan bax lagu soo dhaweeyay shanta Soomaaliya oo kale jigjiga Hargeysa Gaarisa iyo Soomaaliya inta kala badan wax ka soo dhaweeyay ma wax taageero ma leh midaas ahaantii waanu ognahay Xasan Sheekh Maxamuud 4 sano bartuu hogaaminayay hore 2012 ilaa 2017 inay dawladdiisa ahayd dawlad musuqa inay dawladdiisa xun ahayd waxa laga yaabaa inuu isbedelo waxa laga yaabaa inuu dawlad fiican la imaado waxa laga yaabaa inuu al-shabaab ciribtir iyo ISIS waxa laga yaabaa inuu wadanka xoreeyo inuu maaliyadda wadanka dhiso dhaqaalaha wadanka dhiso military kor u qaado ciidamada badda cirka dhulka meel walba ay wada qabsadaan oo Soomaaliya boorladan helo waxa laga yaabaa in madaxweyne Farmaajo uu ka fiicnaado runaantii waxaan u maleynayaa shar laakiin waxa laga yaabaa in uu ka fiicnaado uu noqdo madaxweynaha aad ugu fiicno aanu garab istaagno madaxweynaheena aanu u duceyno haduu wax qaldo aanu saxno aanu u sheegno madaxweyne waxaan aqalada dhahno haduu wax saxana aanu ku amaano aan ku dhirino madaxweynaheena gacmo furna ku soo dhaweeno dhamaanteeda walaal taageerayaasha nabad iyo nolol taageerayaasha Farmaajo aan soo dhaweeno si fiican aanu u duceyno habaarka aanu ka deeno
iyo cuqdadan u qaadayno iyo xumaatadan haddeertan alisay aan abuurayno ugu dambeyntii walaalayaal waxaan idinka codsanayaa idinka baryayaa taageerayaasha nabad iyo nolol taageerayaasha farmaajo inaan garab istaagno dowladdeena qarankeena dhammaantan waxaan nahay ummad Soomaaliya waxaanu jecelnahay muxaafid iyo mucaarad inay dowladdan noqoto dowladda adduunka ugu fiican dowladda adduunka ugu tayo fiican waxaanu jecelnahay madaxweynaha inuu noqdo madaxweynaha adduunka ugu fiican waxaanu ku gaari karnaa dhammaantayada isku imaado dhammaantayna wada hadlo aanu iska booqa dhagno waxyaalaha xun oo soo dhaxmaray aan u jirno aan u jeesano jidka saxda aniga oo maxamed faarax abdullaahi waxaan ku duceynayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu ilaahay xilkan kula garab galo inuu kugu guuleysiyo xilka 4 sano inaad noqoto nin ka soo bax shaqada loo idmay nin intaas waxdaad qalad gashid waan ku qabanayaa waan ku sheegayaa qaladaadkaaga waana ku saxayaa hadaad xumaata suubisid oo dowladdaada noqoto dowlad waxyaalo qaladaad suubinayso waan kaa soo horjeesanayaa waana ku saxayaa ayada laftigeedo qaladaadkaada ayaan ku sheegayaa fadlan walaalayaal meel walba joogtaan ummadda Soomaaliyeed u duceeya madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud waxaanu asagana ka rajaynaynaa inuu quluubta shacabka Soomaaliyeed hanto inuu dhammaanteedu hanto mucaarad iyo muxaafid maadaama ummadda Soomaaliyeed mucaaradkada badan yihiin inuu hanto inuu taageerayaasha farmaajo hanto inuu la imaado xirfad aqoon iyo shaqo wanaagsan iyo dowlad wanaagsan si dowladdiisu u noqoto dowladda abid ugu fiican caalamka waxaan Soomaaliya u rajaynayaa guul waxaan Soomaaliya u rajaynaynaa inuu xasan sheekh maxamuud ilaahay ku guuleysiyo xilka 4 sano hayo fadlan videoga faafi gaarsii walaalaha Soomaaliyeed meel bay joogaan qaasan taageerayaasha farmaajo bal aan qabanno aan u wacyigelino aan u sheegno runtii Soomaalinimada laga bixin ee fadlan Soomaalinimada aan ku dhimano dhamaanteen ma maasantii